Bismillah, thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waxaan qaadan doonaa casharkii saddexaad ee jabtarkii labaad ee noo socday oo aan labada cashar ka soo qaadanay. Inta aanan casharka gudagelin, fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar. Sidoo kale soo daawo labadii cashar ee casharkan ka horreeyay. Waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka si aad u fahanto casharka maanta. Aan gudagalno casharkeena. Types of variables. Qaybaha amase noocyada ay u kala baxaan doorsoomayaashu. Waxaan leenahay doorsoomuhu wuxuu u kala baxaa laba qaybood amase laba nooc. Nooca koowaad wuxuu yahay quantitative variable, waana doorsoome kaa oo xogtiisa loo soo bandhigi karo ama loo qiyaasi karo tiro ahaan. Halka nooca labaad uu yahay qualitative variable, oo ah doorsoome xogtiisa loo soo bandhigi karo qaab qoraal ah amase text. Labada nooc ee u kala baxo doorsoomuhu ayaan si fiican ugu sharxi doonaa section-kan. Weliba casharka maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa nooca koowaad oo ah quantitative variable, halka casharka soo socda insha Allah aan ku qaadan doono nooca labaad oo ah qualitative variable. Qaar ka mid ah doorsoomayaasha sida qiimaha uu joogo guri ayaa waxaa loo soo bandhigi karaa qaab tiro ahaan ah, oo waxaan dhihi karnaa tusaale ahaan qiimaha guri hebel uu joogaahi waa 100,000 oo dollar ayaan dhihi karnaa, taasoo micnaheedu tahay in tiro ahaan loo soo bandhigi karo. Halka qaar kale oo ka mid ah doorsoomayaasha sida midabka timaha aan loo soo bandhigi karin qaab tiro ahaan aan loo soo bandhigi karin, oo tusaale ahaan midabka timo qof waxaa la dhihi karaa waa madow ama waa brown ama waa caddaan, laakiin looma soo bandhigi karo qaab tiro ahaan ah. Tusaalihii koowaad oo ahaa qiimaha uu joogo guri oo kale ayaa wuxuu noqonayaa quantitative variable maadaama tiro ahaan loo soo bandhigi karo. Halka tusaalihii labaad oo ahaa midabka timaha uu yahay qualitative variable maadaama uu ka hadlayay tilmaan shay, taa oo loo soo bandhigi karo qaab text ahaan ah ee aan loo soo bandhigi karin qaab tiro ahaan ah. Qeexitaanka nooca koowaad oo ah quantitative variable wuxuu noqonayaa doorsoome kaa oo loo soo bandhigi karo tiro ahaan ayaa waxaa loo yaqaanaa quantitative variable. Xogta laga soo arooriyay variable nuuciisu ahaa quantitative variable ayaa waxaa loo yaqaanaa quantitative data ayaa loo yaqaanaa. Oo tusaale ahaan haddaan dib ugu laabano tusaalihii ahaa qiimaha uu guri joogo, haddii aan qiimaha guri ku qiyaasno tusaale ahaan inay tahay 100,000 oo dollar, waxaan leenahay 100,000 kun ayaa waxay noqonaysaa quantitative data ayay noqonaysaa. Tusaalayaal badan oo kale ayaa waxay noqonayaan tusaale ahaan dakhliga qof soo gala, dhererka dad, iibka guud ee tusaale ahaan shirkada sameeyeen, qiimaha guryo ay joogaan, tirada gaariyaal ee qof leeyahay, iyo tirada shilal ee dhacay ayaa ah tusaalayaal quantitative variables ah. Maxaa yeelay mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha aan soo sheegnay waxaa loo soo bandhigi karaa qaab tiro ah. Tusaale ahaan dakhliga qoys soo gala ayaa wuxuu noqon karaa 81,520.75 dollar ayuu noqon karaa sanadkiiba. Iibka guud ee ay shirkadi samaysay ayaa waxa uga soo xaroo karta tusaale ahaan lacag ah 567 milyan oo dollar sanadii la soo dhaafay, iyo wixii lamid ah ama tusaalayaasha lamidka ah. Doorsoomayaasha tiro ahaanta loo soo bandhigi karo ee noocan ah ayaa waxaa loo sii kala qaybin karaa laba qaybood oo kala ah discrete variables iyo continuous variables. Discrete variables qiimayaasha doorsoome tiro ahaan loo soo bandhigi karo ayaa waxay noqon karaan kuwo la tiri karo iyo kuwo aan la tiri karin. Tusaale ahaan waan tiri karnaa tirada gaari ee uu leeyahay qoys, laakiin ma tiri karno dhererka qof ka mid ah family-ga ama qof ka mid ah qoyska dhererkiisa ma tiri karno. Annagoo taa ku salaynayna waxaan leenahay doorsoomaha kaa oo
qiimayaashiisa la tirin karo ayaa waxaa loo yaqaanaa discrete variable. Ogow in uusan jiri karin qiimo u dhaxeeya laba tiro oo isku xigta oo ah discrete variable. Tusaale ahaan, tirada gaari ee ay sii iibisay shirkad gaariyaasha sii gada amase wakiilo gaariyaasha sii iibiya maalin uun ayaa waxay noqon karaan discrete variable, sababtoo ah tirada gaari ee la sii iibinayo ayaa waxay noqon kartaa eber, oo inaan gaari maalintaas la iibin, hal gaari in la iibiyo, laba gaari in la iibiyo, saddex gaari ilaa iyo inta gaari ee maalintaas la iibiyey, waana wax aan tirin karno. Sidoo kale waxaan leenahay tirada gaariyaal ee la sii iibiyey wax jajab ah ma soo gelayaan, oo ma dhihi karno tusaale ahaan 0.5 ayaa la sii iibiyey, oo labada tiro oo ah 0 iyo 1 wax tiro ah oo jajab ah oo u dhaxayn kara ma jirto. Sidoo kale ma dhihi karno 1.5 cars ayaa la iibiyey, ma dhihi karno, oo ma jirto tiro u dhaxayn karta 1 iyo 2, tiro u dhaxayn karta ma jirto. sidaa darteed maadaama aysan wax jajaba soo geli karin waxaan leenahay waa discrete variable. Tusaalayaasha kale ee mateli kara discrete variable-ka waxaa ka mid ah tirada dad ee booqanaya banki maalin uun, sidoo kale tirada gaari ee lagu baakimay meel gaariyaasha lagu baakimo. Tusaalaha kale wuxuu noqon karaa tirada mawaashi ee uu leeyahay qof beeraley ah. Tusaalaha ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa tirada arday ee dhigata fasal. Continuous variables. Qaar ka mid ah variableska lama tirin karo, waxayna ka soo qaadayaan in uu jiri karo qiimo u dhaxeeya laba tiro oo isku xigta, taasoo macnaheedu tahay in markaan ka hadlayno continuous variableska ay yeelan karaan jajab, taa oo ay si toos ah liddi ugu yihiin wax loo yaqaano discrete variableska. Variableka marka noocan ah ayaa waxaa loo yaqaanaa continuous variables. Waqtiga la qaatay si imtixaan loo dhammaystiro ayaa ah tusaale continuous variable ah, sababtoo ah wuxuu noqon karaa waqti kasta oo tusaale ahaan u dhaxeeya 30 daqiiqo ilaa iyo 60 daqiiqo. Waqtiga la qaatay sida imtixaankaas loo dhammaystiro ayaa tusaale ahaan wuxuu noqon karaa 42.6 minute ama 42.67 minute, amase si guud waqti kasta oo u dhaxay kara 30 ilaa 60 daqiiqo, taasoo macnaheedu tahay in uu soo geli karo jajab. sidaa darteed waqtiga la qaatay si imtixaan loo dhammaystiro kaasoo u dhaxeeya 30 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo waa tusaale cad oo continuous variable ah.